بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي وعن داوديال kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo aad kala socotaan xulashada wararka qodobada wararkeena aan idin heynana waxaa kamid ah Axmed Madoobe oo waayay garab muhiim ah iyo mas'uul sare oo ka tirsanaa Jubbaland oo qarax lagu dilay wuxuu ahaa ujeedka al-shabaab ay ka damacsanaayeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee Muqdisho gilgilay ra'iisul wasaare Khayr xukuumaddiisa oo lagu eedeeyay faan iyo hanjabaad inuu waqtiga kaga dhamaaday sirta ka dambaysa howlgalka dawladda ee gobolka Shabeellaha Hoose qalqal soo wajahay Jubbaland iyo dareen cabsi ah oo gaaray Kenya Somaliland oo go'aan adag ka qaadatay ka hortagga cudurka coronavirus madaxweyne Dani 7 maalmood oo nasasho ah kadib ayuu dib ugu laabtay Garowe iyo wararkii ugu dambeeyay Turkiga oo cadaalad u raadinaya Jamaal Khashoggi qodobadaas iyo kuwa kale ayaan idin haynaa ee u diyaar garooba daawashada wararkaasi oo faahfaahsan markale kulan wacan daawadayaal intaan wararkeena guda gelin fadlan haddii aad nagu cusub tahay ku soo biir asxaabteena oo subscribe dheh channelkan si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka faahfaahinno ayaa ka soo baxay gudoomiyihii deegaanka Raaskambooni oo qarax lagu dilay wararka ka imaanaya deegaanka gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegay in qarax miina lagu dilay gudoomiyihii deegaanka Raaskambooni Cabdullaahi Tiiriye oo muddo 9 sano ah maamulaya deegaankaas qaraxa ayaa ahaa mid lala beegsaday gaariga uu saarnaa gudoomiyaha deegaanka Raaskambooni wararka ayaa waxay sheegayaan in gudoomiyuhu uu geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxaasi miino gudoomiyaha la dilay ayaa la sheegay inuu aad u taageersanaa madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe uuna ka mid ahaa mas'uuliyiinta xiriirka dawladda leh madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam al-shabaab waxay ka hadleen ujeedka ay ka damacsanaayeen weerarkii ismiidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay isgooska sayidka ee magaalada Muqdisho al-shabaab ayaa si rasmi ah u sheegtay mas'uuliyadda weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay agagaarka isgooska sayidka ee magaalada Muqdisho afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Umar Xasan ayaa sheegay in qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa oo isku qarxiyay maqaayad ku taala suuqyaraha u dhow isgooska sayidka Saalax Dheere ayaa xaqiijiyay in qaraxa ay ku dhinteen 3 qof iyada oo 6 ka dalana ay ku dhaawacmeen dadka dhintay ayaa 3 ka mid ah ay ahaayeen isku qoys waxaana geeriyoodeen markii la geeyay isbitaalka iyagoo dhaawaca war ka soo baxay al-shabaab ayaa lagu sheegay in qofka maleeshiyadooda ka tirsanaa uu fuliyay weerarkaasi isla markaana uu ujeedku ahaa iyo bartilmaameedka weerarkaasiba maqaaxi ay qaad ku cunayeen ciidamada dawladda sida ay hadalka u dhigeen al-shabaab amaliyad istishaadi ah oo mujaahidiintu ay ku fuliyeen dhabarka dambe ee xarunta baarlamaanka waxaa ku dhintay 9 ka mid ah ciidamada dawladda 24 kalena dhaawacyo ayaa ka soo gaaray ayaa lagu yiri war ka soo baxay mintidiinta al-shabaab weerarkan ayaa qubarada amnigu waxay ku macneeyeen mid ka turjumaya carada ay shabaabku ka muujiyeen tallaabadii 16 bishan looga wareegay gacan ku haynta deegaanka Jannaale ee gobolka Shabeellaha Hoose sidoo kale waxa weerarkan u muuqdaa mid ay al-shabaab uga argudanayaan tiro saraakiil ahayd oo maalmo ka hor looga dilay tuulooyinka hoostaga Jannaale halka kuwa kalena iyaga oo nool gacanta lagu soo dhigay sida ay sheegeen qubaradu shabaabku waxay sidoo kale damacsanaayeen inay muujiyaan cududooda iyo inay wali weerar baqtin galiya dadka ay fulin karaan walibana ay ka geysan karaan xeendabka aadka amnigooda loo ilaaliyo xaaladda amni ee magaalada Muqdisho ayaa aad u wanaagsaneyd birihii dhawaa iyadoo tallaabooyin dhowr ah oo la qaaday ay yareeyeen qaraxyada magaalada gaar ahaanna kuwa baabuurta al-shabaab ayaa qaraxyadii ay ka fulin jirtay baabuurta waxay u muuqataa inay hadda u bedeshay kuwa ismiidaamin qofeeda maadaama inta badan la xiray jidadkii ay ka soo gali jireen baabuurta la qarxiyo xildhibaan Mahad Salaad ayaa weerar culus waxa uu ku qaaday xukuumadda ra'iisul wasaare Khayr xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo ka mid ah golaha shacabka Soomaaliya ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa gaarka ah ee Facebook waxa uu kaga hadlay deyn dhaafka Soomaaliya loo sameynayo qoraalka Mahad Salaad ayaa u qornaa sida tan 3 sano oo faafaan iyo indhacadeys raaxadana looga qaaday natiijada deyn cafinta Soomaaliya maanta waxay ku aruurtay in la yiraahdo Soomaaliya waxay gaartay marxaladda koowaad ee u qalmidda deyn cafinta ee loo yaqaan decision point loona gudbay marxaladda deyn cafinta kama dambaysta ah ee loo yaqaan completion point oo la saadaalinayo inay qaadan karto ugu yaraan 3 sano ilaa 16 sanadood haddaba waxa in la isweydiiyo mudan nabadii nolol maxay beenta intaas la eg ummadda ugu sheegayeen mise iyaga ayaa u qaatay marxaladda koowaad ee u qalmidda deyn cafinta inay tahay deyn cafin kama dambays ah ee loo yaqaan completion point xoreynta Jannaale ayaa 2 siyaasadood badareen gelisay dawladda Kenya
ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa oo isku dhafan cutubyo ciidanka lugta ah iyo kuwa kumaandooska danab ah oo kaashanaya kuwa nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM qaybtooda hubka culus ayaa Maaj 16 2020 dib u qabsaday magaalada Janaale. weerarka oo in muddo ah la sugayay ayaa ciidamada xoogga dalka oo iska caabin laxaad leh kala kulmaya dagaalayaasha Al-Shabaab ayaa si guul leh ula wareegay degmada Janaale iyo deegaanada ku hareeraysan, taas oo ka dhigan in dhammaan buundooyinka gobolka Shabeellaha Hoose ay gacanta ugu jirto ciidamada xoogga dalka, sida ay sheegtay wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya. magaalada Janaale oo qiyaastii ay ku nool yihiin 30,000 oo qof, kana xigta caasimadda Muqdisho 75 kiiloomitir dhanka koonfureed oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed, ayaa dhowr jeer dirir ku dhex martay ciidamo ka kala tirsan dowladda federaalka iyo kuwa dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii AMISOM ay dib uga soo guratay bishii Maaj 2015 kolkaas oo 19 askari oo u dhashay Uganda ay ku waayeen noloshooda. ma aha markii ugu horeysay oo magaalo xagjiriinta ku xoog badan tahay ay ciidamada dowladdu dib u qabsadaan. Abriil May 2009 ayaa ciidamada xoogga dalka gacanta ku dhigeen magaalooyinka Sabiib, Caanoole iyo Bariire, halka Juun iyo Agoosto 2019 lagu guuleystay soo qabashada Ceel Saliini iyo Owdhigle oo 50 kiiloomitir dhanka bari ka xiga caasimadda Soomaaliya. Ra'iisul Wasaaraha ugu hambaliyay ciidamada xoogga dalka ayaa guushaas ku tilmaamay inay qayb ka tahay qorshaha badbaadada dalka looga xoreynayo argagixisada Al-Shabaab. intaasi waxa uu raaciyay in howlgalladani uu isugu jiro wiiqidda argagixisada, sugidda amniga, dib u dhiska maamulada deegaanada iyo fidinta adeegyada aasaasiga u ah bulshada. weerarka Janaale oo ciidamada dowladda Soomaaliya ama ciidanka xoogga dalka ayaa ka mid ah howlgalka badbaado oo ah dadaal wadajir ah oo lagu sugayo aagaga koonfurta ka xiga caasimadda Muqdisho. inkastoo dib u habeyntii ciidamada kadib xoogga dalka Soomaaliyeed ay gaareen guulo la taaban karo, haddana horumar yar ayay sameeyeen birihii la soo dhaafay marka la barbar dhigo dhulka u baahan xoreynta si ay u wiiqaan shabakadda mintidiinta ah loona helo maamul deegaan markaasi iyo boolis awood leh oo sugan nabadda. si kastaba ha ahaatee, xarunta Janaale ayaa u muuqatay in ciidanka xoogga dalka ay gaari karaan ujeedooyinka dowladda federaalka Soomaaliyeed oo ah sugidda nabadgelyada dalka iyo la dagaalanka xagjiriinta, taas oo laba siyaasadoodba u dareen gelisay dowladda Kenya. in firxadka Al-Shabaab loo soo riixayo aagga Sector 2 oo ah deegaanada ay joogaan ciidamada Kenya oo ka tirsan AMISOM, taas oo aan saamixi doonin in iska sii harsadaan Jubbada Hoose, iyo in xoogga dalka uu ku soo gurguuran doono Jubbada Dhexe si loo wiiqo awoodda sheegashada Axmed Madoobe iyo siyaasadda Kenya ee ah inay helaan maamul goboleed hayin u ah. waxaa hubaal ah in guusha Janaale iyo qorshaha duulaan ee Jubbada Dhexe ay soo dedejin doonto qorshihii ka bixitaanka AMISOM ee ku madlanaa 2020 ilaa 2021 iyo ka qaadista cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya. sidii caadada u ahayd, Kenya waxay ku dhaqaaqday ficil aysan taladeeda ruganin, taasi oo ah in diyaaradaha ciidamada cirka Kenya ay ku boolxuftayaan dusha ciidamada Haramcad kuna soo xadgudbaan magaalada Buuxaawo ee gobolka Gado oo qayb ka ah Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan shaki ku jirin in awoodda kaliya ee guul lagu noolaan karo ka soo hooyin karta xoreynta aagga xagjiriinta haysato sugidda askarta amniga. waxaa shaki ku jirin in awoodda kaliya ee guul lagu naalodo ka soo hooyin karta xoreynta aagaga xagjiriinta haysato sugina karta amniga, xasiloonida iyo badbaadada dalka iyo dadkaba ay yihiin xogaga ciidamada qaranka. ilayn horaa loo yiri biyo sacabadaada looga dhargaaye. Somaliland ayaa go'aan adag ka qaadatay hortagga cudurka coronavirus. wasiirka caafimaadka Somaliland Cumar Cabdilaahi Badde ahna gudoomiyaha guddiga qaran ee diyaar garowga iyo hortagga cudurka COVID-19 ayaa sheegay in maalinta berri ah la xirayo xuduudda Somaliland la wadaagto dalalka dariska la ah. Cumar Cabdilaahi Badde ayaa intaasi ku daray in la xirayo laga bilaabo berri xuduudaha ay la wadaagaan Soomaaliya, Djibouti iyo Ethiopia, kuwaasoo qaarkood horeyba ay u sheegtay inay dhinacooda xireen xuduudahooda sabab la xiriira ka hortagga faafitaanka coronavirus. waxaa xirnaan doona xuduudaha muddo 3 toddobaad ah oo ka bilaaban doonta berri oo bisha tahay 26 bisha 3 2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo, waxaana
waxaana kasoo gudbi kara oo keliya waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabka caafimaadka, ayuu yidhi wasiirku. Sidoo kale wasiirka ayaa warbaahinta u akhriyay go'aano guddigu soo saareen kuwaasoo lagu xoojinayo ka hortagga cudurka, kuwaasi oo kala ahaa: 1. Bulshada Somalilan waxaa lagu adkeynayaa inay ka taxadaraan halista xanuunka coronavirus, raacaan fariimaha wacyigelinta ee loogu talagalay ka hortagga xanuunka ee bahda caafimaadka la wadaagayso. 2. Guddigu markay qiimeeyeen xaaladda rakaabka ka soo degaya madaarka Cigaal ee Hargeysa, waxay go'aamiyeen in dhammaan rakaabka la socda diyaaradaha ee soo galaya dalka laga bilaabo maanta muddo 14 maalmood lagu haynayo goobo gaar ah oo lagu karantiilayo. Muddadaas oo la hubin doono xaaladooda caafimaad, iyagoo rakaabkaasina isku qabi doonaan qarashaadka ku baxaya muddada 14 cisho ee la haynayo. 3. Waxaa la xiray dhammaan xuduudka dhulka ee Somalilan la leedahay dalalka Soomaaliya, Jabuuti iyo Itoobiya muddo 3 toddobaad ah oo ka bilaabanaysa berri oo bishu tahay 26 bisha 3 2020 marka laga bilaabo 6 maqribnimo, waxaana kasoo gudbi kara oo keliya waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabka kale ee caafimaadka iyo wixii la mid ah. 4. Waxaa la xiray dhammaan marsooyinka badda dekedaha ee Somalilan marka laga soo reebo dekeda Berbera oo ay kasoo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, daawooyinka iyo agabyada kala duwan ee caafimaadka iyo wixii la mid ah laga bilaabo berri oo bishu tahay 26 bisha 3 2020 6 maqribnimo marka la gaaro. 5. Mas'uuliyiinta wasaaradaha iyo hay'adaha madaxa bannaan ee dowladda waxaa lagu wargelinayaa in shaqaalaha ay ka maarmayaan ay faraan inay ku shaqeeyaan guryahooda, iyagoo shaqaalahaasina ku jiri doona heegan buuxa. Arrintanina ma saameynayso hay'adaha iyo wasaaradaha hoos ku xusan, kuwaasoo duruufo gaar ah awgeed looga baahan yahay inay si buuxda u shaqeeyaan. Hay'adaha iyo wasaaradaha waxaa ka mid ah shaqaalaha wasaaradda horumarinta caafimaadka, shaqaalaha wasaaradda horumarinta maaliyadda, shaqaalaha wasaaradda warfaafinta, shaqaalaha madaarka Cigaal, shaqaalaha dekeda Berbera, shaqaalaha wadada Cerigabo Burco, shaqaalaha bangiyada Somalilan, shaqaalaha dowladda hoose. 6. Hay'adaha dowladda ee u xilsaaran fulinta go'aamada loogu diyaar garoobayo lagana hortagayo xanuunka COVID-19 ee guddigu soo saartay, waxaa lagu wargelinayaa in cid kasta oo ka dhaga adeegta hirgelinta go'aanadan ay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan. Madaxweyne Dani 7 maalmood oo nasasho ah kadib maanta ayuu dib ugu soo laabtay magaalada Garowe. Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Dani oo toddobaadkii u dambeeyay ku sugnaa degmada Eyl ee gobolka Nugaal ayaa dib ugu soo laabtay magaalada Garowe ee caasimadda Puntland, halkaasi oo uu ka maqnaa maalmihii lasoo dhaafay sababo la xiriira arrimaha nasasho guud iyo ka cararka la kulanka dad kala duwan. Madaxweyne Dani ayaa horey u sheegay in loo baahan yahay in la yareeyo kulamada dadweynaha, sidaasi oo kalena uusan qaabili karin dadkii kala duwanaa ee kasoo qayb galay shirkii wadatashiga Puntland, kaasi oo ay dad badani doonayeen inay si gaar ah u arkaan madaxweynaha. Soo laabashada Dani ee xafiiska waxaa horyaalla caqabado badan oo ka mid yihiin arrimaha ammaanka ee Boosaaso iyo Gaalkacyo oo ah labada magaalo ee ugu waaweyn Puntland, kuwaasi oo ay ka jiraan falal ammaan darro. Sidaas oo kale inuu u safro magaalada Muqdisho ayuu isku diyaarinayaa madaxweynaha Puntland Siciid Dani, xilli ay shalay ka tageen Garowe wafdigii dowladda federaalka Soomaaliya uga qayb galay kulankii kusoo dhammaaday Garowe 17 bishan. Ka sokow arrimaha caqabadaha gudaha u haysta madaxweyne Dani, haddana arrimaha federaalka ayaa ku ah caqabado kale oo ay tahay in si wadajir ah dhinacyadu u maareeyaan, waxaana si weyn indhaha loogu hayaa safarkii magaalada Muqdisho. Khamiistii toddobaadkii lasoo dhaafay, madaxweyne Dani ayaa hoosta ka xariiqay inuu tagayo magaalada Muqdisho, halkaasna kulan uu kula yeelan doono madaxda dowladda federaalka Soomaaliya, balse isheen khilaaf iyo arrimo hoose oo ay dhinacyadu isku hayaan ayaa keentay qabashada shir jiraa'id oo iska soo horjeeda. Turkiga ayaa 20 qof oo Sacuudiyaan ah oo ay ku jiraan 2 kaaliyaal u ahaan jiray dhaxal suge Maxamed bin Salmaan kusoo oogay dacwado la xiriira dilkii wariye Jamaal Khashoggi, sida ay Arbacada sheegeen dacwad oogayaasha dalkaasi. Dacwad oogayaasha ayaa kusoo eedeeyay taliye ku-xigeenkii hore ee sirdoonka Sacuudiga Ahmed Al-Asiri iyo la taliyihii hore ee dhanka warbaahinta ee maxkamadda boqortooyada Sacuudi Al-Qahtani inay hogaamiyeen howlgalkii lagu dilay Jamaal Khashoggi iyaga oo amray kooxda dilka fulisay. Khashoggi oo ahaa 59 jir wax ku qori jiray wargeyska Washington Post ayaa la dilay 2 Oktoobar
2018 markii uu galay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul si uu uga soo qaato warqad uu u baahnaa si uu u mehersado gacalisadiisa Turkishka ah Hatice Cengiz. Turkey ayaa baaritaan u gaar ah ku sameysay dilka kadib markii ay ku qanci weyday sharaxaadda ay bixisay Sacuudi Carabiya. xafiiska dacwad oogaha Istanbul ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in Al-Siri iyo Qahtani lagu eedeeyay inay bilaabeen dilkii ulakac ahaa ee argagaxa badnaa iyaga oo horseeday rafaad. 18 tuhmanayaal kale oo ay ku jiraan Meher Mutreb oo ah sargaal sirdoon oo si joogto ah ula safri jiray Mohammed bin Salman iyo qabiir Saynis Salah Al-Tubeji iyo Fahad Al-Balawi oo ka mid ah ilaalada boqortooyada ayaa lagu eedeeyay dilkan ulakac ahaa ee xandarada ahaa. 20 qof ayaa haddii dambiyada lagu helo waxay wajahayaan xabsi daa'in. dacwad oogayaasha Turkiga ayaa sheegay in maxkamadeynta raggan la furi doono iyaga oo maqaanayaal ah balse ma aysan raacin waqtiga. dacwad oogayaasha ayaa horey u soo saaray waaran lagu soo xirayo eedeysanayaasha oo aan ku sugnayn dalka Turkiga. CIA-da iyo Anjes Kalamat oo ah ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u xilsaartay baaritaanka dilka Khashoggi ayaa dilka si toos ah ula xiriiriyay dhaxal suga Sacuudiga Mohammed bin Salman eedeyntaas oo si xoogan u beeniyay. gudaana daawadayaal saaxiibayaal warkii oo aad kala socoteen xulashada wararka waa naga intaa warkankiisa xiga intaan ku kulmi doono dhammaanteen waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas nabadgelyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.